waalid marka uu ilmo dhalo oo aad u jecel yahay weliba wiilkiisa safar uu yahay badana sida aan wada naqaano wuxuu sameeyaa inuu waaniyo. halkan waxaan ku soo bandhigaynaa qisa qaabkaas u dhigan Jackson Brown wiilkiisa oo u socda jaamacad inuu ka soo dhigto meel ka baxsan magaaladiisa oo la hardami doona qaababka ay ku soo waajihi doonto nolosha. Jackson wuxuu isweydiinayaa ma hadda ayuu iga dhaqaaqayaa oo kaligiisa nolosha waajahaya. habeenkaas Jackson hurdo bay ka soo dhici weeday oo indhaba uu isa saari waayay. dhowr jeer marka uu firaashka ku galgashay hurdana aysan haynin, markii dambe wuxuu go'aansaday inuu tago miis ku yaala kushiinka ama jikada uuna horay u soo qaato qalin iyo warqad. halkaas waxaa ka bilaabantay talooyinka aan maanta halkan kusoo gudbin doono ama kusoo jeedin doono. la soco adigana qalinkaaga iyo warqadaada hore u soo qaado si aanay kuu dhaafin. soo dhawaada, magacaygu waa Yacquub Xasan. talada koobaad, maalin kasta 3 qof bogaadi oo u mahadceli. noloshaada waxaa ku jira dad badan oo saameyn kugu leh, ixsaan badanna kuu sameeyay. dadkaas waxa ay ka mudan yihiin mahadcelin oo noqo qof ammaan iyo bogaadin mudan. talada labaad, salaanta dadka si diiran ugu gacan qaad. weliba waxaa fiican inaad isla wada isticmaasho gacantaada iyo afkaagaba. talada saddexaad, u noolow qaab aragtidaada waafaqsan. qofka wuxuu xurmad leeyahay marka waxa uu afkiisa ka sheegayo ay ka muuqdaan ficiladiisa, oo xitaa taas waxay kor u qaadaysaa kalsoonida aad naftaada ku qabtid. talada afraad, naftaada iyo dadkaagaba saamax. taas waxay ka caawinaysaa si degan oo qurux badan inaad u noolaato. talada shanaad, warqad ku qor ereyga mahadsanid oo dhig meel ay arkayso lamaantaada ama xaaskaaga, sababtoo ah qofka lamaanahaaga ah wuxuu ku qabanayaa hawl badan oo aadan weligaa qabsan lahayn. tusaale ahaan oo kale sida adigoo shaqo laga sugayo inay cuntada kuu diyaariso, dharka kuu dhaqdo iyo wixii la mid ah. talada lixaad, ha hilmaamin ka warhaynta caafimaadkaaga, sababtoo ah caafimaadka waa wixii aad wax ku qabsan lahayd. qof aanan caafimaad qabin waxba ma qabsan karo, oo iska ilaali waxyaabaha caafimaadkaaga dhaawacayo sida qaadka iyo sigaarka oo kale. talada toddobaad, kaga farxi dadka aad jeceshahay had iyo jeer oo sii hadiyad yaryar, xitaa haba noqotee xabad shukulaato ah. talada sideedaad, baro sida kombiyuutarka si degdeg wax loogu qoro. taladan aniga ahaan aad ayay ii anfacaysaa, waanan ku dadaali doonaa sababtoo ah maalmahan dhow waxaan aad uga fakarayay inaan arrintan sameeyo. talada sagaalaad, iska jir weligaa qishka iyo isdabamarinta, sababtoo ah noloshaada ayay xumeynayaan oo waxaad noqonaysaa qof aan dadka dhexdiisa xushmad loogu haynin. talada tobnaad, ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo diintiisa ha aflagaadaynin Allah subxaanahu wa tacaala, kadibna iska jir inaad aflagaadayso diintiisa, sababtoo ah labadaas shay waa waxa kaliya oo ugu xun oo aad noloshaada qaban kartay. sababtoo ah Allah subxaanahu wa tacaala nagama mudno iyo diintiisa inaan midna caayno.